tan iyo markii la gaaray bisha barakeysan ee Ramadaan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya falal amniga liddi ku ah kuwaasi oo inta badan mas'uuliyadiisa ay sheegatay xarakada al-shabaab lana egtay xarumaha dawladda oo ay ka mid tahay xarunta looga arrimiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ee Villa Soomaaliya iyo waliba xarunta golaha shacabka oo sidoo kale waxaa la qaarajiyay xubno siyaabo kala duwan xilal uga hayay xukuumadda federaalka Soomaaliya 9kii bishani aynu ku guda jirno ee July waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed oo magacaabay wasiirka amniga taliyaha ciidanka booliska iyo waliba agaasimaha hay'adda nabad sugidda xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday howlgallo ay sameynayeen ciidamada booliska iyo waliba kuwa nabad sugidda kuwaasi oo garab ka helaya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxaana howlgalladaasi lagu soo qabtay qaarkood dad badan oo la sheegay in ay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab waxaa sidoo kale ay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gawaari lagu soo xiray walxaha qarxa kuwaasi oo ay gacanta ku hayaan hay'adaha amniga isla markaana ay baaritaano ku socdaan shakhsiyaadkii watay gawaaridaasi afhayeenka hay'adaha amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble oo la hadlay warfidiyeenada ayaa ka codsaday dhammaan bulshada in ay kala shaqeeyaan amniga isla markaana ay wadajir uga hortagaan dadka dilalka iyo waliba faralka amni darro ka geysanaya magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa inay sharciga la shaqeeyaan oo sidaa la isugu xiraado wax la isu sheego kan ku dhuumaalaysanaya inta gabadha dila ama hooyada dhaca ama wiilka dila ku dhuumaalaysanaya waan iska kaashanaynaa sidaas noo ballana halkana noo ballana dambiile halkana noo ballama tan iyo markii xilka wasiirka amniga loo magacaabay Khaliif Axmed Ereg horeyna oo ahaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda ayaa amniga Muqdisho u muuqday mid isbedel aan sidaa u burnayn laga dareemayay balse maanta oo ugu dambeysay agagaarka isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho waxaa qarax lagula eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana halkaasi ku dhintay laba ka mid ah ciidankii saarnaa halka tiro kale oo aan si rasmi ah loo cayimin ay dhaawacyo ka soo gaareen Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Axmed Puntland TV Muqdisho